السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada saaxiibayaal asxaabta igu cusub ama channelkan ku cusub waxaan ka codsanayaa inay subscribe like share ay saaraan muuqaalkan si muuqaalkan uu gaaro saaxiibo badan aniguna aan u kasbado macaamiil cusub waxaan doonayaa inaan idinka dabageeyo wararkii warbixinadii u dambeysay wadankan aynu ku noolahnay Jarmalka maanta waxaan idin hayaa warbixin dhowr meel aan ka aqriyo oo aad iyo aad u cajiib ah warbixintaas waxaa laga yaabaa inay la mid tahay sheekooyinka Soomaalida wadankooda ka soo tahriibay misna ku sugan wadanka Afghanistan wadankan Jarmalka sheekadan waxay ku socotaa nin u dhashay wadanka Afghanistan muuqaalka hadaad ku cusub tahay mar kale saaxiibayaal subscribe ha iloobin muuqaalkan sheekadeena ayaan bilaaban doonaa nin lagu magacaabo Master Zayed Ahmed oo u dhashay wadanka Afghanistan ayaa uu dalkiisu waxa uu ka ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee dalkaasi Afghanistan sida ognahay waxa ka dhacay dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaasna waxa qayb ka ahaa in ururka Taliban hadda ay qabsadeen inta badan guud ahaan wadankaasi waxayna dadkii u shaqeynaya dawladda iyo waliba wadamadii kale ee shisheeye ee ku sugnaa wadanka ay suurta gashay in isaga cararaan qoliyii dawladdu u shaqeynayay ina way ka carareen wadanka waxayna u baxeen qaaradan Yurub wadankan Jarmalka qayb uu ka yahay ninkan wasiirka ahaa waliba wasaaradda haystay tiknoolajiyadda iyo waliba isgaarsiinta ee dalka Afghanistan waxa uu suurta gashay inuu yimaado oo iska dhiibo wadankan Jarmalka kadib markii wadankan iska dhiibay shaqadiisuna ay tahay isgaarsiin iyo waliba maxaa la yiraahdaa tiknoolajiyadda shaqooyin fara badan ayuu ka dalbaday shirkadaha tiknoolajiyadda isgaarsiinta ee wadankan laakiin uma aysan suurto galin qofka marka uu wax yaqaan oo shahaadooyin wato waxyaabihii uu soo bartay ama uu ku takhasusay ayaa uu u gudbiyaa shirkadda uu doonayo inuu markaa ka shaqeeyo laakiin nasiib wanaag ma aysan noqon waxaa laga yaabaa sheekadan in la mid tahay nin wasiirka ahaa jira Soomaaliya nin wasiirka ahaa jira Taliya nin wasiirka ahaa ama dhakhtarka ahaa jira Soomaaliya ama anigoo kale oo wadanka Soomaaliya wariirka ahaa shaqooyinkooda aanan qabsan oo shaqooyin kale markaas ay qabteen ninkan waxa u suurta gashay inuu shaqo ka helo shirkad Leverand la yiraahdo oo waliba guryaha ugu geysa adeegyada ay dalbadaan waliba shirkadan ay si gaar ah ugu shaqeysaa cuntooyinka fudud sida biisaha oo kaleeto waxa uu suurta gashay inuu shaqo ka helo sanad ah oo wasiirkii tiknoolajiyadda ee dalka Afghanistan shaqadii markii uu helay waxa uu suurta gashay in baaskiilkiisa uu qaato dabadeedna qofkii wax soo dalbaday qaabka online-ka markaasi uu u dalbo qofka uu geeyo gurigiisa isagoo adresskii gambaleelka qofka garaacaya hadda waa nin wadankiisa ka ahaa jiray wasiir tiknoolajiyad ah gaari ayuu ku socon jiray dhaqaale fara badan ayuu maxaa la yiraahdaa ku bixin jiray dhaqaalahaasna qayb kamid ah isaga ayaa la yimid qaaradda Yurub waxa la rabay markuu yimid qaaradda Yurub ugu yaraan inuu sameysto ganacsiyo iyo waxyaabo caynka ah laakiin ma aysan u suurto gelin intii uu ka daba wareegayay shirkadaha lagu magacaabo isgaarsiinta ee wadankan Jarmalka ee tiknoolajiyadda ku takhasusay dhaqaalihiisa ayaa ka dhamaaday qofka hadduu dhaqaalihiisa ka dhamaadana qaaradda Yurub ama Jarmalka marka joogto waa inaad shaqeysaa waxa uu ku qasbanaaday inuu markaasi koro shaqadii uu helayna waxay noqotay in dadka soo dalbada biisaha qaabka online-ka uu ninkan guryaha ugu geeyo adduunyadu waa wareegto mararka qaarkiina qofka bini aadamka haddii uu lumiyo noloshiisii hore ma ahan inuu u shalaayo waxa weeyaan inuu hore u sii socdo dadka qaarkii baa laga yaabaa inay lumiyaan dalkoodii magaaladii ay ku dhasheen shaqooyinkii ay haan jireen ama qof ay xiriir la lahaayeen nolol burburtay waxa laga yaabaa markaas noloshaadii haddii aad dib u raacdo waxa macquul noqonaysa mustaqbalkaagii aayahaagii inuu noqdo mid shalayto uun ku dhamaada laakiin haddii aad hore u sii socoto oo waxa la yiri Soomaalidu ay ku maamaahdaa meel say u taala loola yaalaa Jarmalka timaaday dadku waa wada xoogsanayaan waa muhiim adiguna inaad qayb ka noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadankii wax ku soo bartay qaarkood maxaa la yiraahdaa jaamacada ka soo baxay
ayaa markay yimaadaan qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka waxaa ku adkaanaysa inay yacni shaqaystaan ama nolol ay la qaybsadaan dhalinyarada asaagooda ah. Jarmalkan markaad joogto dabcan waa laba ummad inaad shaqaysato ama inaad wax barato. marka way adkaanaysaa qofka isagoo da'weyn ku soo galay inuu markaas waxbarasho iyo maxaa la yiraahdaa iskuul iyo hadda uu ka daba ordo maadaama reer sugayaan qaarkood famila ay ka soo tageen qaarkood aabayaal ay yihiin yani dhibaatada way iska jirtaa. sheekada ninka ayaa ku sii socon doonaa ninkan ayaa la sheegay in wadanka Jarmalka uu la yimid lacag akoonkiisa ku jirto oo xad dhaaf ahayd laakiin lacagtiisa iyo nolosha wadankan oo qaali ah ama nolosha Jarmalka waxa lagu sheegaa inay yihiin nolosha ugu adag qaaradda Yurub ama adduunka bada inta badan wadankan canshuurtiisa ayaa saa'ida qofka yani waxyaabaha soo galaada isaga ayay ku laabtaan dadka qaarkii ama dadka Jarmalka markaad ureysato mushahar ahaan maxaa sanadkii kugu filan markaad dhahdo ama bishii oo kale miisan ku soo gali karto de waxay ku leeyihiin 2000 oo kaleeto waa anaaf 2000 oo 600 guri ka degantahay 600 reerka u dirtay 300 oo maxaa la yiraahdaa fatraagyadii iyo waxyaabihi ku jirtay 500 oo noloshaadii ah marka lacagtu way iskeenaysaa. hadda ninkan waxa uu shaqeeyaa shirkadda Livrando la yiraahdo biisaha dadku geysa waxa uu ku nool yahay magaalada la yiraahdo Leipzig ee wadanka Jarmalka. hadda guri ayuu qaatay waa uu degan yahay noloshiisana waa uu maareeyay si kastoo hay ahaataba wasiir hore oo waliba teknoolajiyada sawiradan aad arkaysaan dabcan waxa uu qayb ka yahay noloshiisii hore iyo noloshii hadda wax kasto qofka bini'aadamka la soo korbanaadana waxa muhiim ah inuu hore ugu sii socdo. muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo dhameystiran ah waxaad kala socon doontaan barteeda saaxiibayaal waa saaxiibkeena qanciye oo idin leh subscribe-ka leegta shaarka commentiga waa dhankeena.